حافظ يقرأ كتب باهين الباريس كتب باهين في إلى الرسول من قلقة يقرأ كلام صاروا وحلي المشهد اللي مكاي وقع لنا القرآن في قلقة مكا كوروها يقرأ يكفرنا هذا وحبل بالتعين إبراهيم يقدر يرى كلام يروحات وأخذ في يقرأ ومعناها رؤوس من اليوم وحلي مدكين ووضع ملاكسن waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay waxa weeye inspiration-ka oo soo kacaya oo ah wadan dhalinyaradiisu ay aad iyo aad u badan tahay marka waxyaabaha aynu u baahan nahay weye wadankeena weli lama aqoonsan laakiin waa inaynu warbaranaa si aynu bulshada uga xidhiidhno si aynu qarankeena ugu hiilino si aynu abaasitooro u noqono si aynu qaranka ugu hiilino waxaan leeyahay wadankeenu waa wadan noocaantii aynu fursado badan ka haysano in aynu kordhino marka waxaan leeyahay maalintii buugga waa buug qiimaleen waxaan markaa ku darayaa kelmadda ku daraya waxa weeye waa inaynu buuggan munaasabada koowaad aynu lacagtiina u hurnaa waayo buugga haddaad iibsato waxaad ogaatay ogaal badan oo kaa qarsoonaa ayaad ogaatay marka waxaan leeyahay buugaag badan inaad iibsataan oo aqalka aad dhigataan waxay siinaysaa inaad runaantii aad waxyaabo badan aad ogaataan anigu iminka waxaan bilaabay ayaamihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey inaan buugaagta iibsado oo dhinaca quraanka culayska saaro waqtiga geliga dambe waxaan haystaa waqti aad u badan sidaa daraaddeed waxaan isku dayaa inaan wax ogaado runaantii maanta wax badan bay si bedelay markaan ka hadlay inaan ogaaday runaantii taariikhduna waxa weeyaan wadankeena ayaad xataa waxyaabo badan aad ka samayn kartaa oo oran kartaa waa maxay problemkayda haystaa siduu jiraa intuu ka jiraa markaas sidee ayaad uga gudbi kartaa marka anugu runaantii weli waxaan culayska saara qaybta siyaasadda ayay taariikhdeedu ay ku xidhiidhaa oo aan wax badan aan runaantii ka diskaskareeyaa markaa runaantii daayar baynu nahay boqolkiiba 70 wadankeena odayaashu waa aabayaasheen waa adeeradeen waa waawiyaasheen waa isii macasalaameynaa laakiin waxaa laynooga baahan yahay inaynu qalin iyo qoraal aynu meesha aynu ku dhaafino oo aynu muxuu ahayey iyagu talada hore waxay ahayd taladooda iyo aqoontooda waxay ahayd miyiga ku salaysan oo dhaqankii ku salaysan laakiin teena waa inay noqoto mid cilmiga iyo adduunyada casriga ku salaysan oo aynu wax badan dunida aynu ka soo qaadanno taas ayaynu odayaasha ka saari karnaa waynu leenahay amarkii iyo waddanka aynu ka saari karnaa waxa weeyaan odayaasha iyo hor taagan waxa weeyaan inagoo dhinaca waxbarashada culayska saarnay iyo akhriska hadalkeedu waa badan yahay hadalkan waxaa idhahdaa maalintii lama dedejiyo aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan ugu mahadcelinayaa qoraalka daadiyar ibraahim kamed ibraahim waxaan u mahadcelinayaa mas-uuliyiinta nagala soo qayb gashay iyo daayarkiina oo maalintii jawaabkii ka soo qayb gashay aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum